daawadayaal ku soo dhawaada war ogaalka maanta idii hayno waxaa ka mid ah dagaal culus iyo qaraxyo weli ka socda Muqdisho. Mareykanka oo hub culus siinaya dalka Ukraine. Ra'iisul Wasaaraha Finland oo soo gaadhay fadeexad kadib markii uu faafay muuqaal maan doorsanay. Iran oo laga qaaday cunaqabatayntii nukliyeerka, heshiis cusubna la galaysa wadamada reer galbeedka. Erdogan oo sheegay inuusan meesha ka saari doonin wada hadalka Suuriya. ciyaartoyga Real Madrid Casemiro oo Manchester United u wareegaya. kuwaasi waxay ahaayeen war ogaalka ugu doorka roon. Mareykanku waxa uu dhameystirayaa in uu diyaar garoobo barnaamijkii gargaarka ahaa ee dhanka xoojinta ciidamada militariga Ukraine oo la filayo in uu dhawaan ku wareejin doono. Waxaa lagu qiyaasaa hubka lacag dhan 775 milyan. difaaca Mareykanka ayaa hadda u diyaar garoobaya in ay ku wareejiyaan dalka Ukraine si ay iskaga difaacaan dalka Ruushka. dagaalkaas oo socday 177 cisho. Ra'iisul Wasaaraha Finland ayaa sheegtay in ay martay shaybaar dhakhtar kadib markii la faafiyay muuqaal muujinaya in ay maandoorsanayd una ekeyd in ay isticmaashay daroogo. Ra'iisul Wasaaraha waxaa soo gaadhay fadeexad aad u weyn iyo cambaarayn. Marin oo 36 jir ayaa warbaahinta u sheegtay in la baaray jimcihii natiijooyinkana la heli doono toddobaad kadib. waxay sheegtay in aysan weligeed qaadan daroogo. iminkana ma ihi dhalinyaro, waxaan ahay qof mas'uula. waa sida ay hadalka u dhigtay. heshiiska nukliyeerka ee Iran ee cusub iyo cunaqabataynta curyaamisay Iran oo laga qaadayo. ilo wareede ayaa sheegaya heshiiska lagu doonayo in dib loogu soo nooleeyo heshiiskii taariikhiga ahaa ee uu Mareykanku ka baxay. waxaa la filayaa in la sii daayo lacago ka xayirnaa Iran, sida oo kalena inay bilaabi karaan dhoofinta saliida. heshiiskan cusub waxaa lagu fulinayaa 4 waji oo muddo 6 maalmood soconaya. Erdogan wuxuu sheegay in Turkiga uusan doonayn inuu qabsado dhulka Suuriya. mucaaradka Suuriya ayaa ka cabsi qaba in heshiiska suurtagalka ah uu la galo. heshiiskaas oo ku saabsan dib u dhiska magaalada Dimashq. baraha Real Madrid Carlo Ancelotti oo xaqiijiyay in uu Casemiro u wareegi doono xilli ciyaareedka kooxda Manchester United. baraha Manchester United Eric ayaa sheegay in ay u tahay gool, isagoo oo ku baaqaya in kooxda uu ka soo saari doono hoos u dhaca. daawadayaal waa anigoo Maxamed Cawka. war ogaalkan maanta idii haynina waa intaasi intaynu dib u kulmi doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.